dagaal xoogan ayaa xilligan waxa uu ka soconayaa qaybo kamid ah gobolka Hiiraan ka oo u dhaxeeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada deegaanka oo garab ah iyo sidoo kale kooxda argagixisada ugus oo dhinac ah dagaalka ayaa hadda dhowr saacadood sii galaya inta uu socdo wararkii u dambeeyay ayaan muuqaalkan idinkaga dabageynayaa sidoo kale xalay duqeymo ayaa ka dhacay qaybo gobolka Hiiraan kamid ah iyana khawaarijta naafo lagu gaarsiiyay soo dhawaada saakay ayaa khawaarijta ku sugan deegaanada ku hareereysan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxa ay weerar ku soo qaadeen fariisimo ay lahaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa oo iyaguna kaabiga ku hayay deegaanada ay ku sugan yihiin sida deegaanka Sulay iyo deegaan kaleeto oo isna deegaanka Solmo aan u dheerayn halka oo maalmihii u dambeeyay ba khawaarijta iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ba isku horfadhiyeen dhowr dagaal oo horena ay ka dhaceen dagaal aad u xoogan ayaa ilaa iyo saaka hadda waxa uu ka socdaa furimaha aaga Sulay ka oo maalmo ka hor dagaal uu ka dhacay sida ay tilmaamayaan xogaha aynu ka helayno aagaasi dagaalku hadda uu ka socdo khawaarijta ayaa dhowr jiho ka soo weeraray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan jihada ku aadan degmada Maxaas iyo jihada deegaanka Sulay ee maalmahanba dagaaladu ay ka dhacayeen iyo jiha kale oo ku soo aadan dhanka deegaanka Wabweyn hayeeshee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo garab ka helaya kuwa deegaanka ayaa khawaarijta 10 lama ilaawana u dhigay mar kale waxa la sheegay jihooyinkii ay dagaalada ka soo qaadeen laba jiho oo kamid ah in khawaarijta lagu jabiyay isla markaana la sii baacsanayo halka hal jiho oo kamid ah oo deegaanka Sulay oo markii horeba ahaa deegaan si weyn la isugu hayay godadka khawaarijta iyo difaaca ciidanka xooguna ay is saarnaayeen ilaa iyo hadda dagaal oo wali ka socdo wixii ka soo kordha dagaalkaasi muuqaaladeena dambe ayaad ku maqli doontaan haddii Allah wadi la qadaro dhanka kale deegaanka Tardo ee hoostaga degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan oo ay khawaarijtu ku sugan yihiin ayaa xalay waxa ka dhacay duqeyn culus oo lagu beegsaday fariisimo iyo isu imaatino khawaarijtu halkaasi ay ku lahaayeen dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in xalay dhowr gantaal oo culculus ay ku dhaceen goobo ay khawaarijtu ku sugnaayeen oo ay ku lahaayeen talisyo halkaana lagu beegsaday kulamo maalmihii u dambeeyay halkaasi uga socday oo uga arinsanayeen maamulida deegaanada hadda ay ku sugan yihiin iyo sharciyo cusub oo dadka baad looga qaadayo oo ay doonayeen khawaarijtu in ay soo rogaan maalmo ka hor duqeyn ka dhacday degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa lagu dilay horjoogayaashii ugu badnaa oo gaaraya ilaa iyo 11 halka lagu dhaawacay horjoogihii weynaa ee kaba ku dukaday tan duqeyntan oo iyana lala beegsaday guri ama talis ay iyagu lahaayeen oo shir uga socday ayaa iyana waxa la rajaynayaa sida xogaha hordhacaya ay sheegayaan in iyana horjoogayaal ay ku baxeen hase yeeshee qiimeynta xogta rasmiga ah ayaanu sii sugaynaa haddii Allah wadi la qadaro warbixinada iyo wixii ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaanu ku soo gudbin doonaa haddii Allah wadi la qadaro